waxa weeyaan waxaan raadinayaa ama baadi goobayaa abtiyaashay muddo kadib waxaan isku dayay inaan raadiyo ama aan baadi goobo dadkaasi ehelada burburkii iyo dagaaladii sokeeye uu galay dalkeenna waxay kala geeyeen malaayiin Soomaali ah oo maanta waraasadooda ay ku kala luusan yihiin daafaha dunida iyo gudaha dalka. Nuur Yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka la qayb ka mid ah ehelkooda waxa uuna ila wadaagay qisada kala lumitaanka isaga iyo qayb ka mid ah qoyskiisa. ugu horeyntii waxaan ka codsanayaa qof kasta oo Soomaali ah inuu ku caawiyo walaalka Nuur Yuusuf helitaanka ehelkiisa. waxaad qayb kaga qaadan kartaa arrintan in aad muuqaalkan u sii sheer garayso asxaabtaada si ugu dambeyn uu gaaro ehelada uu raadinayo Nuur Yuusuf awowgiisa dhinaca hooyada oo lagu magacaabo Shariif Maxamed Shariif Cali Shariif Cusmaan waxa uu dalka ka tagay ka hor ku dhawaad 40 sanadood waxuuna aaday dhinaca Itoobiya. sida Nuur ila wadaagay Shariifka waxa uu ku ilmo dhalay Itoobiya waxa uu se geeriyooday 8 sano ka hor balse nasiib darro ma suurtagelin intii uu noolaa inuu isbaro awlaadiisa waana tan keentay in ay maanta kala luusan yihiin oo Nuur uu raadinayo abtiyaashiisa uu sanaqon meel uu ku sheego. qad maasanta walaalkay Shaafici Shariif Maxamuud hadii aan warbixin ka siiyo sida ay wax u jiraan waxa weeyaan waxaan raadinayaa ama aan baadi goobayaa abtiyaashayda aan raadinayo waxa weeyaan awoway Allah raxmo muddo ku dhawaad 32 sano ama 40 sano ku dhawaada ay waxa uu ka tagay Soomaaliya gaar ahaan sidaan jeclay gobolka Gado ama Addis Ababa Koonfur Galbeed ama Jubbaland baan dhaho kadib markuu wadankaasi tagay wuxuu ahaa macallin dugsi Quraan marka wuxuu xakaas ku guursaday hooyadeed waxa uu dhashay hooyadii waxa dhacday isaga oo barin abtirkii hooyadii oo abtirkiisa barin dadku xakan kaga soo tagay Soomaaliya eheladii iyo dadkii xakan kaga tagayna barin inuu Allah raxmo geeriyooday muddo kadib waxaan isku dayay inaan raadiyo ama aan baadi goobo dadkaasi ehelada ama abtiyaasha xakan joogay laakiin imay suurtagelin waqti badan oo aan isku dayay oo aan warbixin aan garanaysaa la xiriirin saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee caalamiga ah ama kuwayaalaha gaar loo leeyahayba laakiin social media Facebook ama ciwaanaha iska dhigay way jiraan marka hadii aan magaciisa intaan ka kasaayo ma ka garanayo aan sheego waxa weeyaan Shariif Maxamed Shariif Cali Shariif Cusmaan weeyaan waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaaliyeed meel walba joogto cid kasta oo garanaysa magacaasi abtirkaasi inay nala soo xidhiidhaan si garanaysaa aan isku xidhiidhno dadkii eheladii iyo qaraabada ahaan wadankan oo uu kaga tagay annagana dadka xagaas joogay maadaama ay dad waqti garanaysaa aad isku oo haddana aan ahayn dad xiriiri ama aqoon isku lahayn إن شاء الله waxaan rajeynayaa in si fudud aan isku heli doono adigana walaalkay Shaafici Shariif Maxamuud aad iyo aad baad u mahadsantahay. marka aad leedahay qayb ka mid ah ehelkaaga aadna ogtahay inay jiraan oo aadan garanaynin waxa ay leedahay xanuun gooni ah waxa Nuur uu ku kalsoon yahay in bulshada Soomaaliyeed oo ah dad isgarab istaaga isna yaqaan ay ka caawin doonaan sida uu ku heli lahaa eheladiisa waana sababta keentay in maanta uu inala soo xariiro. fadlan la xiriiri haddii aad garanayso ehel kale magaca Shariif Maxamed Shariif Cali Shariif Cusmaan walaalka Nuur Yuusuf oo aad kala xiriiri karto nambarka shaashada kaaga muuqda ama baynaka nala soo xiriir waan isku kin xiri doonaa insha Allah.